Bismillahirrahmanirrahiim. Ilaahay ayaa mahad oo idil u sugnaatay oo dunida noogu beeray dhir daawo xambaarsan. Maanta cashirkeen wuxuu ku saabsan yahay daawo dhireed qiimo badan ku fadhiso, laakiin nasiib xumo bulshadeenu aysan aqoon badan u lahayn. Taasi waa geedka huruudda, afka qalaadna lagu dhaho turmeric. Huruudda waxaa lagu tiriyaa geedaha ugu caansan dhinaca daaweynta iyo ka hortagga cudurro dunida dhibaato badan ku hayo. Waa geed aad loo diraaseeyay ilaa iyo haddana la qiyaasayo in laga diyaariyay in ka badan 6,000 oo cilmi baaris weliba ah peer-reviewed articles. Cilmi baaradaas qaarkood waxay sheegeen inuu geedkan geli karo beddelka ilaa 10 daawo oo maanta dunidu aad looga isticmaalo. Marka hore aan ku bilaabo cudurrada iyo cilladaha ay cilmi baarayaashu badankood isku raaceen inuu daawo u yahay. 1. Dhiig xinjirowga. Dad badan ayaa qaato daawooyin loogu talagalay inay dhiigga milaan, kuwaasoo qaba wadne xanuun ama kasoo kabsanaya cudurka faalijka. Daawooyinkaas waxaa ka mid ah aspirin, clopidogrel, warfarin, heparin iyo kuwo kale. Waa daawooyin qofka qaadanayo lagula taliyo inuusan isbitaalka ka fogaan maadaama dhiigbax keeni karaan. Sidaas ay tahayna lagama maarmo, laakiin waxay cilmi baarayaashu sheegeen in huruudda ay ku jirto maaddo loo yaqaano curcumin oo qabanayso hawsha daawooyinkaas, waxyeellana aanan jirka ku reebeynin. Sidaas daraaddeed, dadka dhiiggoodu dhaqso xinjiroobin waa looga digaa inay isticmaalaan huruudda maadaama ay dhiigga khafiifiso. 2. Diiqada iyo stresska. Huruudda waxay daawo u tahay diiqada. Cilmi baaris lagu sameeyay 60 qof oo qaba cudurka major depressive disorder ayaa waxaa loo qeybiyey 2 koox. Kooxda koowaad waxaa la siiyey daawada Prozac, kooxda kalena waxaa la cabsiiyey huruud. Waxaa la arkay in huruudda aysan ka waxtar yareyn daawada ugu caansan ee loo adeegsado niyad-jabka ee Prozac. Sidaas ay tahayna waxyeello kuma reebin dadkii isticmaalay huruudda markii loo fiiriyo kuwa qaatay daawada Prozac. Sidaas awgeed waxay cilmi baaristan ku talisay in dadka qaba niyad-jabka fudud lagula tacaalo huruudda beddelka daawada Prozac. 3. Riixa iyo rheumatism-ka. Maadada curcumin ee ku jirta huruudda waa lurbiyaha ugu awoodda badan ee dunida yaalla maanta, sida ay cilmi baarayaasha qaar ay sheegeen. Waxay barbar dhigeen daawooyinka caanka ah ee loo adeegsado lurbiinta iyo balbalka sida diclofenac iyo ibuprofen. Daraasadahan mid ka mid ah waxaa huruudda lagu tijaabiyey dad qaba xanuunka rheumatism-ka iyadoo la barbar dhigay daawada diclofenac. Waxaa la arkay dadkii qaatay huruudda inay ka xanuun yaraayeen, shaqadooda si sahlan u qabsadeen iyadoo waxyeello ku reebin. Sidaas daraaddeed, shirkado ayaa bilaabay inay qaab kaniini capsule ah ka dhigaan huruudda si loogu adeegsado xanuunadan. 4. Kansarka. Maadada curcumin ee huruudda wuxuu Alle ku abuuray awood disha unugyada kansarka. Daraasad lagu sameeyey shaybaar waxaa la arkay in unugyadii kansarka noqday ay huruudda baabi'isay, kuwii isku beddeli rabayna ay ka hortagtay. Cilmi baaris kale waxaa huruudda lagu tijaabiyey dad qaba kansarka ku dhaca mindhicirada iyadoo bukaanada lala siiyey daawada kiimikada ah. Waxaa la arkay kooxdii huruudda loogu daray kiimikada inay si dhaqso ah wax looga gartay. Waxay cilmi baaristan iyo kuwo kaleba dunida tuseen ahamiyadda huruudda, taasoo dhakhaatiir badan kula taliyaan bukaanadooda laga helo xanuunada kansarka. 5. Macaanka. Huruudda waxay hoos u dhigtaa macaanka, waxay firfircooni siisaa hormoonka insulin. Cilmi baarisyada mid ka mid ah waxay sheegtay in huruuddu ay ka awood badan tahay 400 jeer daawada la dhaho metformin oo ah daawada ugu caansan ee loo isticmaalo macaanka ama sokorowga nooca 2. Waxaa kaloo la arkay in huruudda ay baabi'iso dhibaatooyinka ay sokorta ku reebtay jirka qaybihiisa sida neerfaha, kelyaha, indhaha iyo xididada. Cilmi baarayaal qaar ayaa tilmaamay rajo ah in haddii insulinta ay dib u hawlgasho oo firfircooni yeelato in cudurka macaanka uu ka tagi karo qofka. Sidaa awgeed, huruudda waxay ku jirtaa liiska dhirta lagula tacaalo macaanka sida qorfaha, baamiyaha, xulbadda, bocor qaraarka iyo kuwo kale oo aan ka soo hadli doono insha Allah. 6. Dheefshiid xumada. Huruudda waxaa la arkay in dhowr cudur oo mindhicirada ku dhaca ay wax ka tarto oo ilaa iyo maanta daawo loo haynin. Waxaa ka mid ah xanuunadaas xanuunka loo yaqaano Crohn's disease, xanuunka boogoobidda maroorka ee ulcerative colitis, iyo xanuunka mindhicirada kacsan ee IBS. 7. Kolestaroolka. Huruudda waxay hoos u dhigtaa dufanka dhiigga ama kolestaroolka. Daawooyinka maanta dunida laga isticmaalo waxay leeyihiin waxyeello dhinaca beerka iyo kelyaha ah, laakiin huruudda waxay hoos u dhigtaa kolestaroolka, waxyeellana ma keento. 8. Xanuun baabi'iye. Huruudda waxaa ku jirto awood xanuun baabi'iye ah, taasoo lagu arkay dhowr cilmi baaris. Qaabka ay xanuunka u baabi'iso oo ah inay ka shaqaysiiso nidaamka xanuunka ee loo yaqaan opioid system. Sidaas awgeed, bukaanno badan ayaa lagu tijaabiyey, wuxuuna machadka US Army Institute of Surgical Research ku taliyey in huruudda loo adeegsado ku daaweynta xanuunka dadka gubtay, maadaama qofka gubtay u baahanayo xanuun baabi'iyeyaal badan oo hadhow waxyeello ku reebi kara. 9. Ku beddelidda steroid-ka oo ah daawo waxyeello badan leh haddana aan laga maarmin. Waxaa lagu daaweeyaa xanuuno badan. Sida awgeed, cilmi baarisyadan waxay tilmaameen in huruudda ay sida daawadaas oo kale u shaqeyso oo geli karto beddelkeeda. 10.
nabraha wejiga iyo findoobka. Huruudda waxaa loo adeegsadaa qurxinta jirka, waxay ifisaa maqaarka, waxay yareysaa findoobka iyo nabraha wejiga ka soo baxo. Sidee loo isticmaalaa huruudda? Huruudda iyadoo qalalan iyo iyadoo qoyan intaba waa la isticmaalaa. Faa'iidadana waxay ku badan tahay midda freeshka ah oo qoyan ama isla markaas la shiiday. Cunis iyo cabitaan intaba waa loo isticmaalaa. Waxaa jirta siyaabo kala duwan oo loo isticmaalo, waxaana ugu caansan qaababkan soo socda. 1. Bariiska oo lagu darsado markii la karkarinayo. 2. Mushaarida waa lagu karsadaa. 3. Shaaha iyo caanaha waa lagu qastaa. 4. Rootiga iyo canjeelada ama laxooxda waa lagu dubtaa. 5. Maraqa la cabo waa lagu darsadaa. 6. Qudaarta iyo cagaarka waa lagu bilbilaa markii la cunayo. 7. Waa lagu cadaystaa sida daawada ilkaha oo kale. 8. Dhaawacyada nabraha waa lagu shubaa. 9. Waxaa kaloo lagu qastaa malabka. 10. Biyo ama caano qandac ah ayaa lagu qastaa, kadibna waa la cabaa, waana qaabka ugu badan ee loo isticmaalo. Fadlan faafi casharkan, wixii su'aalo ahna noogu reeb qaybta commentiska, waana mahadsantahay.